iyaga oo meyd ah ayaa masjidkii ay dhisayeen laga soo saaray. dhacdo xanuun badan ayaa ka imaanaysa misna laga soo warinaya degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. soo dhawaada saaxiibayaal, waxaana Cumar Guux. wararka ka imaanaya xarunta ganacsiga Koonfur Galbeed dhinaca kalena xarunta maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee magaalada Marka waxay sheegayaan in halkaas laba wiil oo dhalinyaro ah oo doonayay in ay dumiyaan misna dib u dayactir ay ku sameeyaan mid ka mid ah masaajidada ku yaala gudaha magaaladaas uu ku soo dumay. dhalinyaradan oo ka koobnaa dhowr dhalinyaro oo masjidkan dayactir doonayay inay ku sameeyaan marka hore se dhismihii qadiimiga ahaa doonayay inay dhulka dhigaan ayaa ugu dambeyn waxaa la sheegay in derbi ka mid ah kuwa masjidka uu ku soo dumay. laba wiil oo dhalinyaro ah ayaana hoos ugu jirtay xilliga uu derbiga soo dumeeyay, waxaana ugu dambeyn ay sababtay in derbigaas uu ku fariisto misna uu ku dumo. labadaasi wiil iyaga oo meyd ah ayaana laga soo saaray. dadaal badan oo ay bixiyeen dadka deegaanka oo ay doonayeen inay kaga soo saaraan masjidka ama derbigaasi hoostiisa ama hoosta ay u galeen ayay ku guuldareysteen iyaga oo nool in la helo wiilasha oo ay geeriyoodeen. hadda allah u naxariisto, waxaa halkaas laga soo saaray iyaga oo meyd ah oo wax naf ah ku jirin, waxaana loo qaaday xaafadooda oo ku taala isla meesha masjidka uu ku dumay. masaajidka waxay dadku deegaanka ku sheegeen in magaciisa la yiraahdo Awciilow, kana mid yahay masaajidada ku yaala xaafadaas, sidoo kalena si weyn loo yaqaano masjidka. masjid qadiimi ayuu ahaa, waxaana la tilmaamay in dib u dayactir la doonay in lagu sameeyo, laakiin arintan ama qadartan ay dhacday oo ay ku qabsatay labadaasi wiil oo ehelkooda misna iyagana la sheegay inay degan yihiin xaafada lagu magacaabo Buulakuud oo ka mid ah xaafadaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed. derbigaasi soo dumay waxaa la sheegay in sidoo kale dhaawacyo culus ay ka soo gaareen dhalinyaradii qaar ee iyagana duminta ku hayay qayb ka mid ah isla derbiga kale oo halkaasi ka agdhawaa oo dhaawacooda la sheegay inuu aad u fudud yahay, laakiin labadaasi wiil oo iyaga oo meyd ah laga soo saaray sida muuqaalada iyo sawirada halkaas naga soo gaarayana ay tilmaamayaan. waxay muujinayaan burburka derbiyada masjidka oo la tilmaamay in mid ka mid ah laga soo saaray labadaasi wiil oo dhalinyarada ah oo meydkooda halkaasi laga soo qaaday. dhacdadan ayaa ugub ku noqotay dadka xaafada Awciilow oo masjidkan uu ku yaalo, waxaana alle uga baryeen in jannadii Firdawsa uu ka waraabiyo. waxaana la sheegay in dhalinyaradan ay qayb ka ahaayeen dhalinyaro dhowr masjid oo halkaasi ku yaala dib u dayactir ku sameeyay, sidoo kalena ay doonayeen in sidaasi oo kale masjidkan ay u dhisaan, laakiin inta aysan dhisin oo dumintiisa ay ku guda jiraan qadarta labadaasi wiil halka ay ku qabatay oo waqtigooda ayaa halkaas ku ekaa. caawa waxaa la sheegayaa in qoysaska ay ka geeriyoodeen ay la tiiraysan yihiin geerida labadaasi wiil, laakiin waxay alle uga mahadinayaan in gurigiisii amba guryihiisii guri ka mid ah ay dhismo ku hayeen misna ay doonayeen inay dhisaan oo hamigooda uu ahaa in meel ay ku dugtaan dadka muslimiinta ah ee magaaladaasi ku nool ee weliba doonayay inay ajirka ka xabsadaan misna ka shaqaystaan. ugu dambeynna halkaas ay ku nafwaayeen oo ay ku geeriyoodeen, waana halkii lagu geeriyoon lahaa midka ugu wanaagsan oo ay doonayeen weliba inay dhismihiisu ka qayb qaataan, iyaga oo doonayay inay arkaan masjid ay dhiseen oo weliba dadku ay ku dukanayaan, laakiin qadarta ayaa ka soo hormartay oo halkaas ayay ku geeriyoodeen.